بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما هو سلام يا بشر الصوماليات ميلا كسوغنتين با وعبد السلام جنتلمان ودنيا الصوماليات فيفا نبضية نولل إن شاء الله تعالى وبرنامج كيني نبضية نولل أو مركز تسلس عدسينينو guulaha dalkeena u soo kordhay iyo wanaagga u soo kordhay marka insha Allah taala waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la socodsiiyo horta dhammaan bulshada Soomaaliyeed bartayga daawanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta qiimaha badan ee islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Yaasmiin du'aale sorry yaasmiin ma kumoode waa laga raali ahaw maanta waxaan jeclaan lahaa roob ay riday dabcan suuqa waad garanaysaan baan u malanayaa waa suuqii ninkii maaliyaanka ahaa uu ku geedayay calankeena waanu soo maray oo islaada calankii ka iibsatid laakiinse I don't know kolleyde roob ay jiray maanta oo suuqyadii kalun baa jira isagii ma joogo insha Allah taala mar dambe next time ayay noqon doontaa inaan calankeena ka iibsado. taas waa qodobka labaad. waxaan la socodsiinayaa walaalayaal dhammaantiin sa la wada socotaan horta ku farxa waa guul iyo gobonimo dalka u soo hooyatay oo inoo soo hooyatay maanta oo aynu la wada socono maanta waxa weeyaan maalintu waa Arbaca bishuna waxa weeyaan 8 waxa guul iyo gobonimo maanta walaalayaal hawadii Soomaaliya dabcan oo awal horena dalka lagu soo wareejiyay in shaqaalihii hawada maamulayay oo xafiiskooda ku yaalay wadanka la yiraahdo Kenya Nairobi ay maanta ka soo degeen caasimadda Muqdisho 34 shaqaalaha kamida iyo xafiiskiiba. taasoo waxa weeyaan waa guul iyo gobonimo dalka hore u socda walaalayaal cadawga iyo kuwa dib socod iyo dawladdiid iyo waxaas oo dhan walaalayaal propagandada ay wadaan iyo waxay ku sheekeeyaan iyo qofka dawladnimada taageersan ee dalkiisa taageersan waxay ka faafiyaan arrimo dacaayadoo foolfool xun. horta waxa guul iyo gobonimo ah wasiirkeena duulista iyo hawada Master Omar oo u dhaxayay oo u guura bahaleynayay oo had iyo habeenba u soo jeeday sidoo hawada Soomaaliya gacanta dalkeena ugu soo celinaa oo ku guuleystay. waxaan leenahay hambalyo xukuumadda nabad iyo nolol. horta walaalayaal inaad si fiican maqlaysaan iyo in kale bulshada bartayga daawanaysa aan codka in yar aan inoo yar dalaco waayo qaar baba ka xunbo walaalayaal Soomaaliya dunida inuu arkayno walaalayaal dad baa oo wada wadaniin dadka meesha wada fadhiyada arkaysaan iyo dalkaada wada arkaysaan waa dad dalkoodii ka shaqaystay inagana dalkeenii qaar baa burburiyo markastana hortaagan wax kasta oo horumar ah oo dalkana. talabaad waxaan markasta ku farxayaa horta shirkadda la DB Wall ee maafiyada haddaan ahay Cabdisalaan Gentleman. DB Wall markasta oo laga soo horjeesto waan ku farxayaa haddaan ahay Cabdisalaan Gentleman waayo waaba sababtii horta aniga waaba ii guulba DB Wall oo halbartaa jooga baan ka guuleysanayaa. halano soo duceeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre labada geesiha loo soo duceeyo oo anigana walaalayaal si gaar ah la igu soo duceeyba sababtoo nimbo waxba ku qofka Soomaaliga horta berbera Soomaali baale waa dekedeeni Soomaaliyeed waa sababtiiba soo gelisayba inaan live ba ka hadlaba oo barnaamijyadan live ka baan bilaababa wallahi inaan afraabeen seexan markaan ogaaday ee aan dareemay percentage ba Ethiopia ku leedahay dekeda berbera qaar badan baa ku faraxsanaa. waxaan ogahay laakiin dad badan oo wanaagsan inay jiraan oo iyaguna ku xumaa laakiin si aan hadlin sidoo kale oo isku dareenahay. marka walaalayaal waxaan u duceynayaa mar kastaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Allah raxmaanka madaxooda ha raajiyo Allah raxmaanka ha guuleeyo Allah raxmaanka ha daayo. FIFA madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan anagu mar kastaba ugu duceynayaa waxa weeyaan urugadii iyo calool xumadii aan ka qaaday war wax kastaba dunida way ka dhacaan laakiin se kow calool xumadii aan ka qaaday maalintaan maqlay Allah raxmaanka uma ogaa dareenkan wixii aan dareemay waliba iyadoo arrinkaas soo shaabixin iminka dibadda waa soo bixin laakiin soo walaalay waxa guul iyo gobonimo
inaan ka guulaystay inaanu ka guulaysanana wallaahi DB World inaanay dalkayga qaadanayn inaanay kuna wareejinayn Ethiopia ninka Oromada imkiimi waxaa leenahay waa lagu mina fadhiya haddaba wanaag nolol timaadna alxamdulillah hadii kalena daaday ku taala aniga Oromo iyo Tigray maxaar aniga shaqayta lama aha kow anu wadana cabsanaan jitan maanahay wixii sababta haaba waxay ahayd in dekedeeda markii lagu wareejiyay DB World aan ka kaco bismillah walaalayaal miditaan ku cabaya laakiin soo waxaan madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale halka magaciisa ay soo qori doontaan waan ku faraxsanahay ambassadorka UN-ka u jooga Soomaaliya oo isaguna khudbad cajiib ka jeediyay khudbadaas oo ku sheegay UN-ka dunidan sharci baa lagu kala baxaa qarshi waxa ma shaqeynayso nimankii hargumaysi loo oran jiray albaab kastaba oo laga soo xiray guuliye gobonimo waan ku faraxsanahay in mar kastaba albaab kastaba laga soo xiro qabyaalada wax ma sheegayso waayo qabyaaladii qurun ninkaas oo Soomaaliya oo walaalkay barta maraya aad iyo aad baan u jecelahay Soomaalida oo dhan magaalada wada deganahay bartaas uu roodhiisi siistay dukaankaas uu ka adeegtay taqmaasheega horta walaalayaal waxa guuliyo gobonimo ah qabiil waxa ma taro dekada berbera qaranka Soomaaliyeed baa leh waa hantidii ummadda Soomaaliyeed baa lagu dhisay hargumaysi runta fiican walaalayaal ummadda Soomaaliyeed oo wada wadaniin isaaqa dad badan oo wadaniin oo wanaagsan bay ku jiraan ma wada xuma waxay la soo xidhaa kumanaan fara badan Yusban halka uu leeyahay guuliyo gobonimo waa nin Soomaaliyeed wuxuu ku soo koray wadanka la yiraahdo Syria wan yaro habruniso aad iyo aad isaguna ugu la farxan mar kastaba barnaamijyadana la socda Mareykanka ku nool horta ummadu walaalayaal waxa bedelo hogaamiye ummadda hadii hogaamiye ka xumaado dadkan imka aad arkaysaan beeraleyda waxba lama weydiiyo kuwa beeraleyda dunidana waxa maamula 1% wax ka yar baa hogaanka qabta dadku wada siyaasi ma noqdaan dabcan hogaamiyena ma wada noqdaan laakiin say inagu hadii Soomaaliya hogaankii ayaa inaga xumaaday kuwa caayixta waa soo dhawaada bukaan socodka soo dhawaada kuwa yar lagu koriyay kuliyada ka soo baxay Faysal Cali Waraabe caayida iyo xumaanta soo dhawaada Faysal Cali Waraabe maanta wanarkii isagoo hadlay laakiin soo waxba kama soo qaadaba waa ninka negative waxa siiyay bulshada reer Hargeysa reer Burco negative bay siiyeen waayo markaan leeyahay negative bay siiyeen dee saddex jeer buu sharaxay saddexda jeerba markii ugu dambeysay bulshada dhan bartaa ku nool 4% buu ka helay 20,000 aniga hal habeen bay daawadaanba oo ummadda Soomaaliyeed 20,000 baa uu codeeyay inda adaygu wuxuu ka qabana way markan meeshan markeeda horeba waa iska meherad waa meherada wuxuu fahmay in meherada waad iminka meheradan aan joogay ninkan carabka ay Algeerianka amonami saaxiibkay oo haysto kale wuxuu ogaaday inay meeshu iska meherad tahay waynu ku garaadsanay Soomaaliya silayn ku garaadsanay musabixi oo anigu ku garaadsaday baan idin sheegaya anigoo wax yar baan maqlayay markaan garaadsaday garaadka bay sheegay musabixi silaanyo Saleebaan gaal waxay sidii ummadda kama hor dhaqaaqan laakiin seemaan maqli jirin farmaajo khayr iyo dadka noocaas ah ma sha Allah maan maqli jirin waan ku garaadsan waxay sidii hogaamiyayna ma bulshana waxa bedela hogaamiye laakiin se ma bedelaan waxna lama weydiyo dadka jaahiliinta waa reer miyiga kuwaas miyiga tuulooyinka ka yimaadeen miyiga Faransiiskan dadka beeraleyda meelahaas iska marmaraan talada wadanka waxba laga weydiyo marka kuwa halkan igu caayo walaalayaal waxba ma arkayo waa dadkii baadiyaha ka yimi waxba lama weydiin lahayn hadii dalku wax noqon lahaana mujtamaca in yarba hogaamisa waxba kama noqon lahaynba way aqoonta dalka hogaamisa oo qofka aqoonta leh ama way aragnimada leh ayaa dalka hogaamiya dalkana anaga u soo harayna laakiin soo waxa ku faraxsanahay horta waa cadow nimankani waxay cadow ku yiin bulshada reer Burco kuwa reer Hargeysa isaaqa xitaa waa ku cadow way soo carreen way istaba carreen Faysal Cali Waraabe basaasada haysteen waxay tageen meesha la hado Dubai dibadna waxay dhaaheen dalkayga waan wareejinayna guriga yar iyo wax yar baa loo soo ballan qaaday wala socotaano dalka leehda Qatar ma sha Allah ha guuleysata Qatar adhaxday ka jabiyeen taasuna waa guuliyo gobonimo si sharaf leh ay dekada la yiraahdo ku taala wadanka Suudaan wala barta ay soo qora siwaat meelaha miswaaq wax noocaas magaca waan yar leegsanahay laakiin soo la socda Qatar waxay la gashay heshiis dalka leehda Suudaan billions biku waa hirsi Suudaan hirsi waa martada inaga hirsi
berbere iyo seylac iyo jabuuti oo dee waxaba reer siiba marta dhinaca kalena Indian Ocean kuwa jahiliinta walaal ma garan karayaan marka maasha Allah walaal waa dad xanuunsan Maariim Allah iyo Ciise noo shargaray kuwa uma joojiyo waa dad xanuunsan oo ku miyiga ka yimi walaalo markii dalku burburay waxa ma soo baran aqoon kala ma laha way aragnimo ma laha waxay ka adeegeen Faysal Al-Waraba caydana baray iyo Musabixi Faysal Al-Waraba deeysan الموعد بقى ما كلمية إمك مالك استبا وليس دي وحنا نت full of nonsense وحماها هل نماها لحنا ماها وحوم ماها بقى سوات بلا هذا الله يعسك سوات ولا ليال قوليا كلنا ويسو شرح دونان marka dalka qadar leehda sawaakiin maqsibuku walaalaad aad ma santahay dhimaan bulshada Soomaaliyeed baan idin jecelahay walaalayaal waa cabsanaan jidalmaan waxaan isku jecelnahay Soomaalinimo waxaan isku jecelnahay wadanimo waxaan isku jecelnahay dalkeena oo hore u socda waxaan isku jecelnahay guulaha hore u socda waxay ku sheekayaan dawladdan Facebook baa waxa war Facebook hawadina maanta asxaabta ciidamadii waxaan leeyahay shaqaalihii waa la soo wareegay Muqdisho ka soo degay nimankani qarsho shacbi ah inta soo qaylaan oo murqaamaan musabixiyoon aragti fog lahayn ninka la yiraahdo waxaan waa isku wada mid ah macalla ninka la yiraahdo Cabduligaasna waan bedelayna insha Allah taala say ku dhiso waa down waa zero okay dalka la yiraahdo qadar araxday ka jibiyeen DBO oo mafia DBO wala waxa la yiraahdo waa qoon carabtu way maqli doon hadaan weydiino waxa kale DBO shawam Mareykan baa laga yeeriyay dunida oo dhan baa laga yeeriyay waxa weeyaan waa shirkad mafia black market bay kula gashaa heshiisidu agreement-koodu waa black market ana abarta kaga adag DB Wall kala galay heshiiskuna waa illiterate waa qof bila aqoona waa waliba mid bahan yar oo qabyar dawladda lahada qadar waxay la gashay heshiiskii saxda ahaa dawladda lahada Suudaan ba qadar bay taageertay way arkaysaa Suudaan waxa danta ugu jirto Ethiopia xitaa qadar bay taageertay Soomaaliya dhaxaad bay noqotay ma aha inaanu Imaaraat taageero sidoo kale ma aha inaanu qadar taageero madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay brave geesi baad Allah ku daayay geesi dhalay baad qabyaaladu waxa ma tarto ani maxaa qabyaaladu taraysaa maxay qabyaaladu taraysaa Soomaali baan ahay shii Soomaali baan bartan ku joogaa Montagabo kaasuna waa calankaygi nin Soomaaliya baan ahay isna waa nin Soomaaliya waa walaalkay aad baan u jecelahay dalka leehda qadar walaalayaal waxay la gareen heshiis dawladda Suudaan si gobanimo bay muujiyeen 100%ka 51% waxay heshiiska waxay la siiyeen dawladda la yiraahdo Suudaan sidoo kale qadar waxay qaatay 149 bilyanisna way ku kharash gareynaysaa RFF Muuse aad baan ku salaamay RFF Farais ninkaasna wadan dhab oo xalaala marka walaalayaal balinay bilaa qabiyiin oo bilaahan yihiin dawladda Itoobiya maanta kuwii kulli waxaan rajaynayaa ninkan yare Oromada ee muslimka inuu ka fiicnaado kuwii hore waayo wuxuu ahaa ninkii ku yiri Maxamed Cabdi Cumar kan meesha jijiga haysta war iiga saara eeyga yar buuriyo rabaayada nin waxaan rajaynayaa dhinaca fiican markayga hadduu xumaan oo yimaado tagrayga wadoodii raacana wada kale aan marin doonaa dawladdeedu waxay ku shaqaynaysaa dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka waxaan u hambalyeynaa halka waxa ku soo qortaan inuu dhiigeesho Soomaaliyeed guuliyo gobonimo anigana hiliyo xukuumadana u hiliyo anoo Cabdisalaam Jidmaan hadaan ahay iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo wadaniinta dareenkoodu shaqaynayo berbera waan ka naxay maalintan ogaaday muddo Ilaahay baa markaatiya maalintan ogaaday Ethiopia 19% qoral Ethiopia la qarnigiis 15aad col baan ahay waligeena Ethiopia wala noqon mayno Ethiopia Allah Rahmaanka baa diris naga dhigay laakiin Saylaal Axmed Guri ilaa Allah musta'an col baan waligay baa Ethiopia qaatay dekedeedii oo qaar ku faraxsan yihiin ciyaalka xitaa munaafiqiinta iyo beenaalayaasha iyo Sacad Ali Shire anu kuwaasan la dagaalamay Cabduligaasna wallahi Saylan buu qalay hadduu isla dhaqaajiyo isna meesha waan ka toorinaa DB wala boosaas ma qaadan karto ka halka ay dhiga isag ma bahadlaybe laakiin afartan tuugay hargumeysay raacay maalin oo isu raacay Dubai ee guriga heer looga dhisay wallahi haday guulisan xiliyaan iska jaraya dawladdeeda iyo madaxweynaheena waxaan leeyahay FIFA ilaahay maan ku dharshay sargareeya Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha noolaado ra'iisul wasaare khayrana ha noolaado hadintaan kuwa doonayeen inay dalkayga ku wareejiyaan cadowga maxaan ku taageerayaa waxa berbere iib maaha beec maaha Soomaali baa dalkayga weeyaan waa wadankeegi musabixina waa tuug kii ka horeeyna waa tuug kale oo qaayna ninka la Axmed Silaayo Faysal Cali Waraabana isagu waa eeybo waa rabaayad
ninka la yidhaahdo isnaba ee bidaarta la yidhaahdo cabdiraxmaan ciro waa nin jilicsan dhaqaalaha qaybtiisuu qaataa waa isku wada mid aniga isu kaygala qaadqaadina waxaanaad meelahan ka sheekeysaan dadka walaalayaal garxajsow idinkuna abtiyaal iyo walaalayaal yaalna idin waalin cabdiraxmaan ciro nin adag maaha ninkii adkaa wuxuu ahaa ninkii loodhan jiray doctor gaboose ee go'aanka qaadan karayay ninkaasa laakiinse waa lagu shaqaystaa cabdiraxmaan ciro la yidhaahdo waxa ku shaqaystaa idinkana uu idiin qoslaayo been buu idiin sheegay garxajsow wuu idin gumeeyey abtiyaal iyo habar yarayaal iyo ilma abtiyaal ninkaasu nin adag maaha intii waxaa la kala seexanayay wuu daawanayey xoogaa lacagtiisuun buu qaadanayey anugu laakiinse bartaasaan kala dagaalamayay haddaan cabsanaan jirta maanahay laakiinse garab baan ahay waxaan ku faraxsanahay oo mar kasta ku farxayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre kuwa mooryaanta maafiyada ee iyaguna isbaarooyinka haysan jiray bartaasaan fariin u marinaya ee ra-iisul wasaarahayga iyo madaxweynahayga iga maagay ee wax kasta xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa tuug isaga laftigiisu tuug kaloo ahaa dekadda berbere isagaa u seexay waxba aniga yaanu ii qoslin waa ninkii jejeeg ka soo dhaantaynayey munaafiq kadaaba buu ahaa xasan sheekh maxamuud ninkii kale anigu qabiilooda ma kala jecli qabiilku doonaa sheegto xasan sheekh maxamuud nin hawiye abgaala buu ahaa waa munaafiq xasan cali khayrna waa nin hawiye mursadaa waa geesi alla hadaayo ninkii la odhan jiray cumar cabdirashaacir sarmaan waa nin daarooda waxaasaa ku wareegtaan waa nin ma jeerteenoo maxamuud saleebaan tuug buu ahaa maafiya laakiin se ninka la yidhahdo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waa geesi soomaaliyeed waa nin daarooda isagu anu maanaa kala jecel dekedii soomaaliyeed ayay iga wareejin lahayn nimankaas igu ii badbaadiyey oo aan ku faraxsanay oo wallaahi ilaahay igu ogaayo oo aan afar habeenka seexan oo bartaa dhididku iga baxayan lahaa war db wal waa maafiyo dekedeedii bay la wareegayaan sidee bay amxaara noo soo dhex geliyaan amxaarayna soo dhex gelinayeen nin kaloo faarax toobaas odhan jiray maafiyo kaloo ahaa isaguna laakiin se faadiyaas alla hadaaya isaguna dowladdan ula shaqaynayaa qadar waxa weeyaan waynoo helisay turkiguna waynoo heliyey waa nasab weeyaan kaamil laakiin se walaalayaal maafiyada oo dhan waa laga adkaanaya kuwanina cidlay la joogaan maanta wallaahi maanta waa faraxsanay maalin kasta oo kuwa albaabada loo xidho annaguna waa ku farxaya waayo waa cadow waa munaafiqiin reer burco waxa ma siinayaan reer hargeysa waxa ma siinayaan ciyaalka yar iyagu berberaa wallaahi inaanay shilin ka sinan ama walaal kafe oole qaar baa walaal igu mashquula warbaalkan aan kaqiimna waa la yidhahdaa waxa ma fahmaysaan oo lookalka luuqadan faransiisku hadlaan kafe oolena waa la yidhahdaa qaar baa igu mashquula yidhahdaa kafe kaqiim wartee adeer ma garanaysaan faransiiska malaa youtube translator baad dee ku soo dhex baadhaan lookalka marka lagu hadlayo street language-ka ma garanaysaan kaqiim baa la yidhahdaa kaqiimna waa la yidhahdaa aan kaqiim haddaad tahdo ku lagu soo dhigaya haddaad tahda kafe ooleyna kanuun baa lagu siinaya waa kafe caalam bismillah laakiin walaalahay hay soranina bidixeedu waa tan midigtan ku cadaya aynu wada faraxno oo aynu ducayno wakiilka imaaraadku walaa dalka way ka baxayaan Soomaaliya rumaa idin sheegay wallahi imaaraadku way ka baxayaan DB walna way fashilantay saldhiguna wallahi ma imanayo way dunidan international law baa loo kala baxaya in dalaan ma shaqeynayso afartan lee hargeysa ka soo qeyriya ee maalayacniga ee in dalaanta qabqabta musabbix siyaasi maaha diblomaasi maaha sinaayna uu dayoobay Allah raxmaanka caafimaadkiisa u soo celiyo ninka islaam baa waa shay islaanta la yiraahdo uu qabo ee guriga iyo waxa dhisatay inanka yare inanta guursadana ciyaarsiisa ni wala anigu dumarku waxa ma yiraahdo laakiin dumarku markay doonaan Allah raxmaanka baa quraankiisa ku sheegay oo dhagartoodu waa halis dumarka waxa la yiraahdo markay doonaan way wanaagsan oo waa hooyooyinka waxba oran maayo laakiin si musabbix siyaasi ma ninka la yiraahdo Faysal Waraabna waa basaas weligii mina basaas ba maantana waa basaas maanta wuxuu u hadlaa cidna way dooran weyn waa kadaab ciyaalkana caaydo bara war haddaad nin rageed tahay oo qof caadi tahay Faysal Waraabo maxaa lagu dooran way bal su'aasha isweydiiya dadku soo ku negative ku siiyay dadku waxay yiraahdaan dad qofka European-ka waxa negative siiyay isaga bulshada negative siiyay negative diidmo haddana indhaaday wali soo hortaagay oo ummadda masiirkooda ka hadlayaa yaa ku guuri ka hadal basaas baa tooy saaqay waxa isku dirjay dawladda maxamed saadar ana waan ku aqaan social media ka soo shawadigii Ibrahim kula wax baro yaa kadaab yaa munaafiq bila hanbaata wadigii islaanta kulaha markaad 1998 nootimi islaan yar oo wala dukaan haysata waxa se qaar koranayaan waa gees wallahi inaanu halnaahay maadiga halka joogto xagee baad joogto markii nabad ahayduma geesigana hadeer gool aftamo gune ma jirin wana siigal ganan maana soo gal garan xagee joogto markii nabad la noqday in baad xooftay oo nabad nolol timi war markii rasaastu dhacaysay ee xitaa isaaqa
kuwii sanamta ahaa inkastoo Somali Nation Movement ee sanamta ahay dee xaggaa joogtay Faysal Waraabo sodigii 1990 noo yimi ciyaalkaad khaldaysa ku yaran abtiga uu ahaa walaashay dhashay baad khaldaysaa ciyaalka yaryar iyo ku yaran 1990 dhashay labadii anigu waan ku garan karayaa dadka waaweyn oo ku garanayaan munaafiq kadaab oo soo xirtay baa tahay yaa ku yiri waxaad u noqotaa nimankan la yiraahdo kulmi afayam ma xisbi baad haystaan saafe walaal xisbigu ka qoos laakiin isagu dhisa mid baan idin sheegay wuxuu fahansan كوني بوا كدابي ماشي كمان دقاقان إلى ما نقول شو الصومالي هالك يقول صور شجع وح الله على وح برتا دمان تود فيصل على ورابتها جرا وعيال كيراني عدا هاي طنبي ما هدت كيوه وناورا فيصل على ورابة 1990 بنوي 1990 هدو ينوي منه وحو إسلامي رولي ده هذا نوم حلوة لورنج إبراهيم بس فعنو كرنيه كالنت سديدات ayuu ku yiri islaantaas baa i garanaysa deer Faysal Cali Waraaba la yiraahdaa wax noocaas marka kaasu halna ma bal aakhir 7 kan ugu dhacayde kaasa noo hadlayaba oo walaalayaal maanta masiirkeegi ka talinaya waxan war tuug baadahay waxana ma shaqeynayaan waxaan u duceynayaa ninka la yiraahdo Allahu musta'an war ciyaalkii xanuunsanaya barta ay ku jira soo dhawaada ilma xanuunow ilma bukaan socdo dad liitabaatino aan maleecnayaba dekada barbaram yaale حالة تايم مدلها اللي يروحوا دكتور بربرة سومالي باله دكتور بربرة ياله ما يتوبيان باله يعني سومالي لاين يعني أمة الصومالي لاين لما حيوانو سومالي باله دكتور بربرة لكن سم لها أم حارنا ما لها فيصل على ورابنا كم تلين وعنكو فرح سنة هاي جد أمباسطور كينو شوجا يو إنكا أو سوونا سقروح بدن وجه الله أو وليبا مع عائلة سلدقي و illegal sovereignty-ga Soomaaliya laguma gafi karo iyo dawladnimada Soomaaliya dekedeedana badaheeda lama soo gali karo imaaraadkuna waxay gudoonsadeen inaanay arrimaha aanay dhex gali karin nimankaana filinkoodii bartaas ku dhamaaday DB walna weynadeysay laakiin se kaliya wax la isla qaato arrimaha aan idin sheegayaa sikrada inay lacagtii ka cuneen ay doonayeen marka hore in dawladda federaalka ay bixiso in ay sanad DB wal sii joogto halka ma garanaysa lacagteedii ay kala soo rabaxdo war ku dhinta runta idin dhibtay anigu waan soo dhaweynaya kulli dadka waa caydaan oo ay waxaan ahayn ma garanaysaan iyo aydu aflagaado waxaan ahayn ma haysan dalkani baa la iibsanayaa ay baa la soo taagantay DB walba dalkaaga Itoobiya ku wareejinaysa maadiga qof baaba ninka dalkiisi ku faraxsan inaan xaar lagu wareejiyo way baa DB wal ay Itoobiya ku wareejinaysa DB wal meeyada dalkeena leh doqonow ينعسدن iska caytamayo ay baa la soo taagantay cilmi ku hadla shaahiliin baa tino wada qoxoonti midhan baa illiterate midhan baa tin dugsi dhaxmeeda oo academic ma tidin dugsi oo sameeyaan dhamaysan waxba leedan ma barin kuwa beerahan oo kala loo diray baa tin qofka ku mashquulsan hebel baa waxaan sameeyay hebel kala waxaan sameeyay dalkii dadnimadii waa ka baabaaday ciyaalka yar raaxan oo sanay ma sheegay inta hadalkayga rasaasidin kaga daran muxuu yiri ninkii jiray haduu jiro dukaanada mid dabeecadiisa aqli laga durdurta ama uu dawaarlu diricnimada tuli karo inta badan dadkayga dabiib looga heli lahaa kuwaas dabiib looga heli lahaa diricnimada iyo waxa la tuli karo anaaba u soo iibin lahaa hadii dukaanada lagu hayo muxuu yiri haduu jiro dukaanada antarmaashayga sanad ka soo iibin lahaa haduu jiro dukaanada mid dabeecadiisa aqli laga durdurta ama uu dawaarlu diricnimada tuli karo waa fariidnimada inta badan dadkayga dabiib looga heli la kuwaas oo midhan baa walaal ummadda Soomaaliyeed barta la soo taago dawa Faysal Waraaba nooca uu kulliyada caayada ka soo saaray aan waxba garanaynba nothingka zero-ga intaas aydan ku filan way isku raaxaysanayaan idinkuna caayaba barta ka soo wadaysan caayada soo camirtan ilma xayawaano zero baatin magacayga baa ku ciyaaraysa qadiyadii Soomaaliyeed baa baabinaysa nimankanna been bay idin sheegayaan وحلالة ورد وحي يقول ربنا وحلا يابله قبل عيتم السبب أنا حاربان كأورشوجا يدو لنيمو يناني رجع الله يابنا أبي أدوكم حكا أدوكم دمر قوة بدحدني يو إسكدا إسكنا ولاتين وايا دمر كيبا حتى الله وعلى فيصل على ربع بلايا وشجع بلايا بس أنا ورك يجوا صح ولا لا بربرع إذنا DB وول وإسكجا بحيسال عكس رده إن ما كان كعنا وحلاجا إن الله مستعان لحق تيرين دكتي كلا رسول ربحيان أما الدرود الصومالية إن شاء الله تعالى وعلين دونتا
way naga baxayaan haddii laga fursan waayana dawladda Soomaaliya haddaanay heshiis la galin oo waliba percentage-ka ugu badan Soomaaliya qaadan bal maxaa u diiday inta Itoobiya leeyin percentage baan siinayna may walaaladooda Soomaaliya iyo madaxweyne maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr iyo xukuumadda Soomaaliya la hadlaan oo yiraahdaan war berbera waa magaalo Soomaaliya Hargeysana waa magaalo Soomaaliya Allah musta'aan aanu heshiiska noo galay idinkuyo dee walaalayaal aanu halkan ku dhisano laakiin Itoobiya hoos cararna nasiib wanaag Itoobiyana tagrayga meesha uu ka baxayba iyo noociya daba carri jirteen meesha way ka baxeenba bal xagaa u carri doontaan albaab kasta oo ka soo xidhan anigu horta dadkayga shacabka waan jecelahay waa dad fiican laakiin niman baa waalay siyaasiyiina maanta walaalayaal UN-kii dacwad baa laga gudbiyey safiirkii Imaaraadka waa loo yeedhay waxa guuliyo gobonimada hawadii Soomaaliya oo dalkeena ka xukumayna maalmo dhow dadka qaar baa rawaad moodiyo been moodiyo 4 bay gaadhayaan barnaamij shaqaalaha iyagoo qalabkoodii sita iyo waxoodiiba waa kuwa maanta ka soo degay meesha la yiraahdo Muqdisho اعترافكني والله waxana dadka lagu waalaa oo lagu seexiyaayo waa been qabiil اعتراف leeyahay Soomaalida hadii qabiil kasta ba اعتراف leeyahay raxweentuna اعتراف raadsato nimanka la yiraahdo digilim reefle اعتراف raadsato daaroodkuna اعتراف raadsato ila اعتراف iyo rawaadana lagu rajinay Soomaaliya istaga haloo jaro iyo gobolka la hadaa cayn hadii qabiil اعتراف lagu heleeyay marka nicda walaalayaal iyo waxana ka hadlaysan umada wax iibsamaya ma aha wax shaqeynayna ma aha intaasa ku wareegtaano leedinku walaal leedinku seexiya 8 sano 100 sano dambe ha leedinku wareejiyo marba mid baa been idin sheega umada Soomaalida walaal anigu dadka lama hadlayo dee suuxsanay Faysal Waraabo waalay laakiin waxaan idin sheegay dalka hore u socda dawladuna way shaqeynaysaa laba nin oo geesiinana wadanka way hogaaminayaan oo aragti dheer leh oo dhalinyaro oo cusub laakiin kuwan waa fail ilaa 1991 markii dawladda Maxamed Saab Barnaamij ka baxday wayna soo hortaagnaan berbera beec ma berbera Soomaali baale berbera Soomaali baale qaar bay ugu dadkan oo nasteex sameeya maxaan u nasteex sameeyaa sidani wax ku fahmaan wala waalo 7 sano ayaa been loo sheegay hogaamiyayaasha bana ka xumaaday hogaamiyena ma haystaan hogaamiye bal Faysal bay kuleen waa hogaamiyo Caydo Bara Musabixi waa hogaamiye kuleen maalinta dhawada uu kuleen laba golaan ka badbadeynay Ilaahay baan ku dhashay balo fiirsada ninka hogaamiyaha waa inuu dadka rajo abuura waa inuu dhaahdo caafimaadka waxaan ka qabanaya Allahu musta'aan shaqa abuur baan sameynaya deegaanka waxaan ka qabanaya dhalinyarada waxaan u qabanaya shaqaan u abuuraya waxbaba wuxuu ku celinay ninkii la oran jiray Allahu musta'aan Sheekh Shariif waxaa doortay waxaas waa nonsense irrelevant topic balaahda ma aha topic looga baahnaa iyo khudbad looga baahnaa wuxuu ku celcelinay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa saado adiga ku doortay talabaad nin cuqdad iyo xanuun abuurayaba iyo hebel baan dilay qoladaasana dilay dee hogaamiye ma aha walaalayaal hum baa loo baahan yahay waxa weeyaan inoo shargaray walaalayaal ha ku dhintaan Soomaali baale waxaan u duceynayaa markastaba ma ilaawiye الله الرحمن كهذا يا مدحوين محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزراء حسن على خير والله هو النصيب بدن إذا ولي بس Soomaalidu way nasiib badan Soomaaliya والله هو nasiib badan dhamaantiinba way nasiib badan waayo hadii kuwii aan ogaa ay joogi lahaayeen munaafiqiinta والله maanta dekada berbera wala wareegna laakiin laba gees baa jooga oo la xaasidayo inta iyaga xaasida laakiin ducay qabaan waxaan kaga seexanayaa والله madaxweyne maxamed Cabdilaahi Farmaajo Soomaaliya duco qaba ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr duco qaba anigana kuwa caayay dadka ii duceeyay baa ka badan isku ducada iyaguna qabaan aniguna waan la qabaayo dad ducada umada Soomaaliyeed baa noo duceysay waxaan qirayaa in wallahi madaxweyne maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr maanta go'aanka halka way iga maqlayaan way dhigeysan doonaan guuleysta waxa wax laga aqbalaa oo berigii xitaa marka roob doonto kale aynu tukanayno ciyaalka malcaamadaha jooga ayayna oran jirnay xilligii hore dee looxa dusha ku saarto marka roob doonta la aqriyo malcaamadaha way dad qalbi wanaagsan ciyaalku markay quraanka dhiganayaan ma sha Allah way quraanku wax weeyaan qowlkii Allah Rahmaanka Quraanul Kariim wallahi malcaamadaha inaan been idin sheegay oo mid xaarana ku daray malcaamadaha Hargeysa iyo Burco wallahi waa looga duceeyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr sababta loogu duceynayna waxa weeyaan ciyaalku markay qofku markuu diinta garanayo ee waliba dee bilaa dambiga yahay ee aanu qaan gaadhin ee wanaagsan yahay cadowga u yaqaan mana jecla anigeegan dagaaladan aan la joogo laakiin diintooda ma jeclo anigu diin muslimna baan ahay iyaguna waa muslimiin alam tarakayf bay garanayaan
وألم تر كيف ولا روح ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في وذوقتين بأصحاب الفيل كنا كان الشيء يا أصحاب الفيل كوحي أنا محارب محاردي بعد كدي بربرة قيب كويه شيء ونمك إلهي لا تقالمي الله الرحمن كايا ومتعبط لا تقالمي عيال كوي فانسين تنو حنا من نمك هساد كدي نرله رئيس الوزراء خير محمود هشيس كاكو مجر محمود ديديا إنا محارضو إن أي محارضو إن لا يرتد كده بربرة والله هو يقول دعية مال عامضة والله أنا بين ذي الشيء مركز الدعية طبعا وحود دعية أنت ونفسنا دعاء الله أكبر وايد كان حنوصنا يدك عاية دعاء الله ما بعرف ولا يدك عقدة قبا فيس على ورابنين وحبري يا دعاء ساقبل يا لكن وحلا أقبل يا هو يوم كالصوماليات وحلا أقبل يا دتك هناك تشعل وحلا أقبل يا دتك عن قبيلة دوقون وحلا أقبل يا دتك الصومالي لما تشعل أنت هاس أردم دعوة ولا أقبل يا لكن سلا أقبل مايو كون يجوا عقدة ينعيب فيه سان قف صومالي ونعكره صومالي بابنا هاي هو يدنا هو صوماليات صومالي بين وضعنا هاي قبيل نعكرانه ما بتشرب مركا nimanka haw baqina waa niman duceysan wax allaala wixii nabad iyo nolol taageersan oo dhan uu Ilaahay duceysan laga mana guuleysanayo imisa shirqool baa loo dhigay Ilaahay ma intuu dharshay bal Soomaaliya barnaamijyada waa noo sii faafiya qalbi dhagax baa loo dhigay waa lagu khiyaameynay waxa la doonayay in dawladda iyo madaxweynaha lagu dumiyaa la doonayay haddana maxaa loo dhigay bal idinku halka ku soo taxa inta shirqool ay ka badbaadeen waraysul wasaare xasan khayriye madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxay ka badbaadeen qalbi dhagax maalin kale nin oran jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa balaayoon soo dhigay waa laga badbaadiyay injectionka kubadi Allah ya ciise hogaamiye xamsi waninka sir waa free tii ugu dambeysay tan imika xitaa loo dhigay ee beled xaawo iyaga lagu soo beegay iyaga loo dhigay way ka badbaadiyay wallahi way ka wada badbaadiyay dekada berbera heshiiskiisii waan inkay laaway heshiiskii dekada berbera ee meesha la yiraahdo Allahu musta'aan warska caytano qofka caytamaya daaday ku taalay anigu macaawan soo dhaweynaya soo dadka ay gudaha haba toorinba injection kuno badi bay gudaha injection kan idin badanaya sida ka damberbara ee looga yeeray ninka la yiraahdo walaal balad xaawana wallahi waxay ahayd assassination loo dhigay iyo shirqoolada loo dhigay oo la doonayay in xukuumadda lagu fashiliyaba alla nimanku xaasid badan laakiin ilaahay xaasidkayga ha badiyo nabad iyo nolol xaasidkayga ha bato anigana xaasidkayga ha bataba way qofka hadii xaasidkiisu bato waa bu guuleystaa kow horta qalbi dhagax baa loo soo dhigay oo xaasidnimo ahayd oo la doonayay in lagu fashiliyo way fashilmi waayeen way guuleysteen oo ummadii baa fahantiba waxa hadana Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa arrimo soo maleegay tii bariira loo soo dhigay oo reerab oo leesay habar gidir iyo dawladda waxa isku dhacaanba tiina way ka guuleysteen ma sha Allah oo daacad bay ahaayeen walaal iga daa qofka soo garaayo tiina daacad bay ahaayeen sidoo kale waxay ka guuleysteen oo Allah Raxmaanka baad la baxsanay iyagoo may guuleysteen daacad bay ahaayeen DP World oo wali bari hore doonayay in heshiiska la gasho ayaa waxa uu yeedhay Imaaraadku ra'iisul wasaare Xasan Khayre ma fiyadii iyo hargumisina waa u yeedheenba dabadna heshiis baabay hoosta ka seexdeenba waree maxaa la doonayay in ra'iisul wasaare iyo xukuumadda la iskaga hor keeno Allahu musta'aan tii Cabdi Qaybdiinna ku dar Cabdi Qaybdiinna Imaaraadka soo weeraro wax la sahabar gidir ha kacdo oo xasaasiyad oo dadka xasaasiyadda la la doonayay in la kiciyo dee walaal qofkan oo yaga qabanaya ونين ولا النبر كي كلا وان كي ميجر هالي هذا تاس أمد الله ولا روي تشعلين أنا قلنا ما تشعل الله يعيش تيو قدام بيسي وحياة تي مرات كلاغية ري محيمر كورو بلشيس قول الجلوة رئيس الوزراء فريد قرب يمكن واحد يكون مير على الإسلام رئيس الوزراء هي مدحوينها جديدة إن المنافقين حدود جديدة هي ساكنين في مقدشين مالها كهالي إيه جديدة دور على هاي قفنا يا قبنا إلى أهي كرنا مركا يعني الله المستعان ولا يقدر دور على الله ساسوم وما الله يقول تحامل والله هو بكاء سعود الله سانكارك ورنيو حتى هذا كل هذا ويدين لما هلا يبا وح الله لو وحي دبر دقيق كرن مايو بالله ونص سومالي هو والوارن مرتان إيه أولي بس مش كسوتشين بدو هو ذا كبحي وردين بدايبه هذا يمكن دولة إذا سومالي كهلا ما يدي كان صوتون هي ولا اللي نمد قريات طبعا مع التلفون كان هيك صوت قرعنه أنا سلمت قلنا أنا واحد ما جوليسنا سلاينا ما جوليسنا مصبحنا ما جوليسنا ميلنا ما تسكع عيتما عيدي الناس قوة 30 تلفون كايقة صوت قراعنا دي عيد واسكع عاديو أنا عيدي دم برتبان قرنيا عيدي وانا عيبي سنوي ساقو مي عيتي مترين وحين لهين رقي قبي تري وحين لهين عبد القيس بين لهين هدراو بين لهين
xaajaadan afqalooc baynu lahayn maxamed xaashi dhamac gaarayaynu lahayn suugaan baynu wax ku sheegi jirnaa laakiin iminka hooyadaabaa sidana kan waa khaniis kan kale waxaan kala dee waa full of nonsense isaaqoo maynu waddan wada marnay anigu waan idinka baydhay dee caydiinii waan ka soo hadhay waayo wuxuun baynu caayaynaaba kani waa doqon haddii qofku isaaqa war isaaqa sharaftooda iyo karaamadooda waxay ku jirtaa soomaalinimo waa isku wada mid marka maxaa la caytamaysan yaa ma meel idin gumaysan jiray sunnaganana waynu dagaalanoo dawladdii maxamed saabirin ridno waxaasaynu inaga daaya cayda allaa ya cisig waayo qofka caytamuun bayn hoostaan waa nacaas waa waxan war qaran soomaaliyeed baynu maanta hablaheenni baa soo taariibaya waxaynu u baahannahay dawladnimo nimankani meelna inooma wadaan dekedii bay inaga iibinayaan marka dee dhibta inaga daaya walaal iska caytamo laakiin telefoonkuna iga soo garaacina intiinan caytamaysaana waa iska wareersantiino idinkaa iska miirsan doona tii beled waxaa walaalayaal waxay ahayd dawladdan wey ma ogtahay daraawiish halkii koofi lagu dilay lagu duugay maanta in gab ay ku duubeen degmadaana roobelay waan jecelahay hablaha daraawiishtoo dhan meelay joogaanba inantaas shaafiya soomaaliya siman waa kuwaase horta mee waalantiin somalilan baa ka sheekaysaan dadkani miyaanay deegaanka deganayn dhulbaanta miyaanay daraawiish hayn miyaanay sool deganayn dadkaa khasbina dee khasabka ka daaya miyaanay samaroon deganayn miyaanay warsangeli deganayn miyaanay ciise deganayn miyaan gabooye deganayn maxaa la qaylinaysaan innaga inaga wada dhigayon wax wada qaylinayoon ma anaa idin dumin karay horta niyow inaad dadkan inay waalayiinba maanta waxaa xidhan wallahi inaan been idin sheegay bal midhkaa dhegaysta soomaaliya nin yaroo reer burca waaba habar jecel igu lahaa waa meesha ka soo daaya waar saleebaan oo de adigaa u adeeray ka soo daaya ninka yar waxa lagu xidhay maqaal buu wuxuu ku qoray oo wuxuu yidhi inaa soomaaliyeed baa bartaa maraysa hablaha soomaaliyeed hablaha kala dhow way ka duwan oo kala dirceeda bay iska sotaa alla hadaayo oo dukaankaasay ku socotaa anuu dee dumarkaa soomaaliyeed meel hablaha soomaaliyeedo inaa waalantiin inantaasu iminka diraceedii iyo waxeedii bay iska seetaa faransiiskaas hadhow way xamanayaan oo way caayaan bal inaa waalantiin waayo waa qaxoonti baa la odhanayaa waxaan dharka duqoshii bay dhahaan faransiisku maxaa ku faanaysaan waa laydin caaya waa laydin maagaya walaalayaal maanta bal qaybta ilaahay nin yar oo waxaa la idhaahdaa maxamed kiise ninkaa yar maqaal yar buu qoray wuxuu yidhi madaxweynuhu waxa weeyaan local minis waa maxalli soomaaliya idinka igu sheegi doona maxallina waa carabi localna waa english waa kuwaas ima daayaan wallahi inaanan been idin sheegin imaba daayaanba warniyo waxaan waan iska daayaa xitaa faransiiska xitaa qaar joogo halkanoo maalayacnaya waxaas ahay iska ceshaanoo hooyooyinkood ha u diraan boqolka doolar ilan waa dadkaas soo taariibiyey anugu calankaygana istaayo walaahi dawladda faransiiska iga warhayso waa kuwa meel kastaba kuwa oo dhan bay igu dhahdaa soomaali daqaabo bay igu yeedhaanba calankii soomaaliyeed bay sadam kuwan ku tago ku dhahdo may garanaysaan haa bay ku dhahaan soomaali daqaabo ya calankii soomaaliyeed daqaabo waa calanka okay marka walaalayaal ninkii yaraa maantay yidhaaheen dacwad baan ku soo ogeyn dacwaddiisu waxay noqotay madaxweynihii wuxuu ku sheegay local ama maxalli waariye billaah baan ku dhaarshay waxaasu makiisba bal waxaasaa qof lagu xidhaya tan labaad waa nimanka ku wareegay inan xidhay inantii la odhan jiray naciimo qoran oo loo soo duceeyey ilaa imika u xidhanta marka anigayga halkaa fadhiyana way iga baqanayaanba waa anaaba duminayaba ninkaygaa faransiiska jooga wallahi anaa duminayaba waayo d b wal baan kaga guulaysanayaa maxaan kaga guulaysanayaa dee soomaalinimo ilan meesheegu ma lehe madaxweynahaygana bilaahi calaykum 800 bay ugu daawanaysaan sheer gareeya intaasaan ka codsanaya intiina faraha badan ee wadaniinta way walaalay waxaan halkaa duco marinaya oo aan ku faraxsanay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waa geesi iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayr wallaahi waan gumoobi lahaa haddii maanta dekedaa berbera ay d b wal igala wareegi lahayd wallaahi waan gumoobi lahaa inaanan dhiigkarba igu kici lahaaba iminka waan faraxsanoo habi baan ku jiraa laakiin laba geesiyo allaha daayey ayaa ii soo baxayba oo aan laga yeelaninba waayo meel kastay u boodaan xitaa igad maxaa la ahdaa east africa waxaanay ku midoobeen igala waxay tidhi dawladda soomaaliya ayaa ka mas-uula badaha soomaaliya beriga soomaaliya cirka soomaaliya waxaba waxa la yidhaahdo somalilan iyo niicna wallaahi ma shaqaynayso maba shaqaynayso waa guuliyo gobonimo maantana waa kii ka qudbadaynayey un-ka xalayto ka qudbadaynayey ambaasadoorkii soomaaliya u fadhiyey un-ka ee isaguna yidhi imaaraadku waxay nagu wadaan wax la ahdo interference oo sovereignty-ga soomaaliya iyo dalkayaga ayay ku ciyaareen guriga gobonimo raggaas meanay noo helin ilaahay baan ku dhaarsin waayo berbera waa la qaadan lahaa haddii kuwii hore joogi lahayn waxba odhan maayo lakin haddii cumar cabdirashiid joogi lahaa maafiyada maalin dhowto intu wax soo qoray buu ku leeyay waxaanu leenahay dalalka dariska
هنجد دايم فريقلين وعمر عبد الرشيد سواء سومالي تقابو هي لسنو تقابو سومالي marka walaalayaal ma sha Allah taasna waa guuliyo gabanimo oo waxaan ku oray ma sha Allah waa raganimo waxa kale oo maanta farxad inoo ah iyo guuliyo gabanimo waxa inoo ah hawadii Soomaaliya oo shaqaalihii hawada Soomaaliya ka shaqeynayay xafiiskiiba ay maanta Muqdisho ka soo degeen taasna waa guuliyo gabanimo waxa guuliyo gabanimo dadka reer shabeellada hoose oo qaralaas ka yiri jiray oo dib u heshiisiin loo sameeyay war dalkani horuu soconaya 2022 insha Allah taala wan ma wafood baa dalka ka dhici doona madaxweynaha Soomaaliyana iyo ra'iisul wasaaraha way isku duubeen odaygeeray la oran jiray Jawaarina wala jaan qaadi karo way anu waxa ma dhaleecanay laakiin si xukuumadan nabad iyo nolol wala jaan qaadi waayay waanu ina dhaafaya insha Allah taala dalkana horuu u soconaya kuwa xanuunsanayna loo joojin maayo marka walaalayaal waxa guul iyo gobanimo kulli ciwaanka halka waxaan ku soo qortay waxaan jeclaan lahaa inaan idin dhameystiro Faysal Cali Waraabo waa show u dawaqay oo markii Muuse la oran jiray horta waxa ku dhacay dhiikar oo siyaasadda waa la gaadkaaday xitaa sinaa xulay guriga waa laga soo saarayaaba oo imaaraadka guriga looga sameeyay imaaraadka Soomaaliland maamulkiina madaxay isku jiraan oo imaaraadkana safiirkoodii baa loo yeeray dawladda imaaraadku waxay tiri Allahu musta'an ku xad gudbi mayno dalka Soomaaliya shuruucdiisa iyo dawladnimadiisa iyo qarannimadiisa taasuna waa guuliyo gobanimo nimankii hargumeysi la oran jiray way u dhamaatay hanoolaada madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa laba nin oo daacada laga guuleysan maayo munaafiqiintuna halkaas ay naga xareen iminka way naga baxeenba waayo cay un bay ka hadlayaan caydu ma shaqeynayso 5 jeer marka soo caayaan iyaga iska baxaya walaalayaal saacadba cay kaga fadhiisatay Soomaali baale berberana Soomaali baale berberana beec maaha waana gunnimo nimankii la oran jiray xitaa imaaraadka waxa iyaguna competition ku soo qaaday oo doonayay rirsiida berbere iyo boosaas wuxuu ku qabsanay oo berbere laga yeeriyay dalka la hada qadar isagana loo duceeyo oo dekada la yiraahdo Allahu musta'an qadar ku taala ay iyaguna la wareegeen oo ay waliba ku taala Suudaan baan leeyahay Suudaan ay qaatay 150 qadarna 149 hore loo soconaya dalka hore soconay iyagu dib oo soconayna laakiin wallahi hore u soconayna taasuna waa guuliyo gobanimo guuluhu walaal way iska soo dabdhacayeen ciidanka israaha ciidanka ma sheegin laakiin se waxaan ogahay ciidankeeni dalka Soomaaliya in la dhisayo oo hore u socoto dan cabsalaan ijtimaaci waxyaabaha top secret-ka dadka waxaan leeyahay meelaha soo dhigay waxaan ugu baaqayaa billahi calaykum meediyaha ha soo dhigina arrimaha ciidanka xitaa diyaaradaha weydiinna dalka la yiraahdo Turkiguna oo walaaladeen hore u soconayna qofka xanuunsanay talabaad walaal qofkan Soomaaliga miyaanu Soomaali ahayn ee cadawga maxaan isfaaysanaa marka insha Allah taala hadii Allah Rahmaanka inagu simo dalkeen hore u soconaya waa guuliyo gobanimo Soomaaliya han midowdo ay israacdo kuwa xanuunsanayna walaalayaal Allah Rahmaanka ha caafiyo anagu wax kale oo aanu dhahna garan mayno ninka salaad calanka maanta halka walaal waxaan u yimi mid baa calanku yimi jiray laakiin waa arkaysan roobkii baa daaya dukaankan hadana iska yar garaya insha Allah taala dalkuna hore u soconaya bartaasan kala dagaalamayna ummadda Soomaaliyeed hadaynu nahay aad meel kastaaba joogtaanba ku xaasiinta ku wanaagsan baa ka badan insha Allah taala waynu ka adkaanayna marka walaalayaal ha u bixina munaafiqiinta kadaabiinta cid kalena waxba oran maayo niman kale oo fara badan taaniguna horta walaal tuka balacad baa noqday inta qaar un bay ka soo cabanayo balaayiga sheegaya dankana Allah ku siibsanaya ummadda Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa dalku hore u soconaya inaguna hore u soconayna FIFA nabad iyo nolol FIFA dalkeeni guuliyo gobanimo aad baan idin salaamaya insha Allah taala waa cabsanaan gentleman